السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سود الدوادها وانيجي يوصل لابتي مر لباد مر سدحات مفهمتي قاعمة فرن كسو دواده ما انتو حاندين هايا كعد اونرون مفهمتين اون بينهن وكدعدي دلك اسلا حالدي جري دلك ودن كان aan joogno fahanteen meelan ka joogna sheeg mar Afrika le waay ma fahanteen waxa la dhahay yaa sheekada ka hormar sheekada intaan ka hor dhicin ka hor subscribe no sara subscribe like comment share ha fahanteen share gareeya ina share gareysan naagtaas in aragtaa raba been ima sheegay naaga la dhahay nina qabay hadalkiisa fac u dhuuxiya naagta nina qabay ma fahanteen marka ninkii oo qabay wuxuu u dhashay 5 cunug ay u dhashay cunugeeda weyn wuxuu jiraa 15 years shanta cunug adiga kan u yar wuxuu jiraa almost 8 years wax yar saaid ma qabtay 8 years uu yar yahay waa ogsoonahay laakiin wax saaid u yareys oo saaid u yar maysan qabta maanta waa umul ama waa sanad jir aqligiisa ma hadli karo la dhahayo maysan u joogaan shanteeda cunug ma fahanteen ninkeeda ayay ku tiri ninkeygiyo maama habaryartay oo xanuunsan halkan waa runya taligu qabsada dhow xada waan maqlan caad waa liilisoo wadaay wax iga galay ma laha arinta ciid ma fahanteen idankan waa maqleysaan marka maxaa la dhihi jiray shanta cunug museegay ku dhahday museegeeda qabay ninka qabay ma fahanteen odageedii yay ku dhahday maxaa la dhihi jiray xaaji maama habaryartay oo xanuunsan ayaa laga keenayaa maxaa la dhihi jiray Soomaali diyaaraday soo saaran tahay ma fahanteen diyaaraday soo saaran tahay marka waxaan rabaa qof kale oo meeshan u joogo aniga ahayn ma jirto isbitaalka maxaa la dhihi jiray inaan la joogaan rabaa la siixinaaya marka saas ugu bas ninku waayuu dhahay wuu diray way maqnaatay almost 1 week ay maqneed ma fahanteen hal isbuuc amal ay maqneed marka halka isbuuc markay maqneed maxaa la dhihi jiray ninkii iid yaa la gaaray iid moqto waa tay moqtahay dhaar dhaweeta fahanteen xaddi hore marka maxaa la dhihi jiray ninkii ilmihiisu iskala iiday walaashiisu keensaday wuu qoonsaday ilmihiisii meelahaas awtino geey meelahaas uu maxaa la dhihi jiray soo baashaalsi after baashaala la soo noqday nin maxaa la dhihi jiray saaxiibo ahaayeen soo wacay wuxuu dhahay walaalow maxaa la dhihi jiray aroos nin saaxiibkay oo ka imaaday Australia oo aroos gal raba yaan maxaa la dhihi jiray imaaw idhahay oo ay casuumay ma fahanteen magaaladana waa laga qabanaa caad iska dhig yaa nakan arooskan aadne waan soo baashaaleynaa hataa madaxana aan soo tusno dib ma leh ma fahanteen kii wuxuu yiri saas ma yahay ilmana waan hayaa islaantu way iga xanuun habrigarteed biya xanuunsan ma fahanteen saas darteed maxaa la dhihi jiray ilmihina kama tagi kari yaa ilmihina kama tagi kari laakiin adiga saaxiibkaya tahay for the sake of you waan ku raaca okay alis dhahay meeshii daf laga dhahay meeshii arooska la tagay aroos markii la tagay kadib waxaa dhacday naagta arooska galaysa arooska waxay joogaan laba baashaala ninkii naagta la soo xiray naagta needka hadaa laga qaado waa islaantiisa ka daray dib dhalaa maqli jir naagta shanta cunug u dhashay islaantiisa waay ninku uu soo booday xuraaniyay oo maxaa kaasi naagteeda inta u guursanaysaa bas naagta maxay ku hadli kartaa oo iska aamusta ninku wuxuu dhawarto waan ku furay ninka la raadinaysa in laba nin inay guursatay rabtay inkastoo diinteena sheegay naagtu waa Soomaali ma fahanteen Soomaali bariya wax walba ka dhaxdhaca marka ninkii markaanayta wuxuu dhahay waan ku furay gurigeygana ha iga tagin ma fahanteen caruurteydana uma tagi kartid kii kala meeshuu ku soo xaalday gab naagta ayadoo need wadato yay carartay marka aboo maxaa la dhihi jiray labadooda horta labada ninba horta midka ilmihiisa u joogo wax ka maqan ma leh meesha wax ku qasaarsan oo qasaarada la geli waa ninkii arooska galay asi ahaatee ninkan neegtiisa ilaa ay ninka shukansata oo meel ka saarto oo aroos isla gaaraan oo need loogu xiro oo inta laga buuso neegtiisa ninka asaa damciyaan dhikaraani
nafaaskaas intaas dhan asay ka hesho because markaad soo shaqaysid nimanka hadda jira waa niman oo horta afkooda la aqaan shaqaa u kacdo way jirtaa waa soo shaqaynaysaa salaada ilaa maqribka sinaa for you ma fahantay wax shukaansiga la gala waqtiga ugu shukaansiga badan ay dadka shukaansiga galaan naagaha marka ilmahooda seexsadaan ay shukaansiga galayeen hadday ugu badato ana haddaan si u dhahay horta aqligay ka shaqaysay marka waxaa loo baahan yahay naagaha la qabo oo nimanka shukaansanaya hor diinta muslimka naag la qabo inay ninka la hadasho maba sheegaysa diin sheegaysa ma jirto laakiin naagtaada inay ninka la shukaansato oo waxaas dhan samaysa adiga u lahay anaa runta kuu sheegaa ma fahantay inaa naagtaada maxaa la dhihi jiray hayee markay ku dhahaysay inaa qaraabo goys tahay oo nin fiican ahayn marka ay ku dhahaysay habirtay xanuunsan oo la keenayo marka ay ku dhahaysay maxaa u raaci waysa maxaa ula tegi waysa isbitaalka maxaa u gargaari waysa dhinac ugu qaban markaa leedahay kaligaa iska tag maxaa dhihi lahayd maalintii maxaa la dhihi jiray orod la soo jeeg anna habeenka la soo jeegaa ilmahaas si ugu maqnaan karta ma laha because waddankaas la joogto isku magaalaa joogtin isbitaalaan galaa okay sideed ku dhaxdaa ii sheeg bar naagtaa isbitaal sidaas okay ugu dhaxdaa naagtaa shay week kaaga maqnaan kartaa because adina laba shaxaariya ahaydeen waxaa la ma garanaysaa ninka oo fiican oo maxaa la dhihi jiray wadaadka naag fiican ay kusoo hagaagto marka nin walba ninkiisa lee kusoo hagaaga ma fahanteen diinta muslimka lagu sheegay marka adna maxaa la dhihi jiray ku kaloo shaxaariya ahayd ma fahanteen kulli adoo naag qabtaa dhaysa naag ma qabiyo maxaa la dhihi jiray dadahan waa la aqaanaa meelahaas maxaa la dhihi jiray iska buusiisay marka waa sidaas ma fahanteen hadda cala xasil dhacday taas Soomaali maalin walba wax ka sii xun lay sameeyaan maalin kasta tan ay sameynayaan way ka tahay to kale sameeyaan every day wax la sheegtaan wax la maalin kasta week walba wax la isla dhaxmaraa marka waxa fiican inaa ka waantoodaan inaa fiicnaataan inaa soo isku dhaantaan ma fahanteen loo baahan yahay marka waxa waaye serious inaa noqotid waaye in maxaa la dhihi jiray markaas responsibility adigoo ninka ragga ah qaadid oo maxaa la dhihi jiray naagtaada step by step ula socotid ninkaada adigana step by step ula socotid is ogaatiin diinta way sheegaysaa alright mi fahanteen diinta ninka iyo naagtiisa isqaba inay iska warqabaan deeply inay is ogaadaan ma fahanteen kor iyo hoos inay iska ogaadaan fiican ma fahanteen ninkaada maalinta meesha cirib dhiga inaa ogaatid naagtaada inaa ogaatid ma fahanteen naagtaada ilaa ay ninka shukaansata adaa freedom taasi aan hadda si u fiiro freedom atisi oo ninka ku guursato arooskeeda lagaaga yeer ceebtaas fiir marka saas waa